Assalaamu calaykum. Nolosha waa doon la wada saaran yahay, inkastoo lagu kala duwan yahay sida aan u maareyno nolosha. Waxaa jiro waxyaabo badan oon xakameyn karno, wax walba oon maanta suubinaa waxay go'aaminayaan nolosheena meesha ay ku dambeynayso. Dadka nolosha ka dhacay waxaa laga yaabi lahaa nolol ka wanaagsan midaas inay ku noolaan lahaayeen. Markii aan arkay qaab nololeedka dhalinyaro badan, waxaan jeclaystay in aan idinla wadaago 5 waxyaabood oo udub dhaxaad u ah dad badan maanta in ay nolosha ka dhacaan. Qodobka koowaad, ma raacaan waxa ay jecel yihiin ama ay ku fiican yihiin. Qof walba oo dunidan ku nool waxa uu ku fiican yahay. Waxaa jiro hibooyin eebbe ku manaystay. Nasiib darro in badan oo inaga mid ah isma weydiino anigu kuma nahay, maxaan ku fiicanahay. Waxaan fiirinaa badanaa dadka kale xirfadahooda iyo hal abuurka ay la yimaadeen. Iskuul inaad dhigato, jaamacad gaadho ma ahan fursadda kaliya ee kuu furan. Boqolaal qof oo dunida daafeeda ku nool noloshooda way horumariyeen, badankooda iskuul maysan gelin. Maantana waa taajiriinta caalamka. Caqabadaha ugu weyn oo dhalinta maanta haysata ayaa ah inay wax ka dhageystaan dadka waaweyn ayagoo aaminsan xigmaddu inay ku timaado da'da. Maya walaal, xigmadda iyo waayo aragnimada kuma xirna da'da oo kaliya. Maskaxdaada iyo qalbigaaga ayaa ah la taliyaha ugu wanaagsan ood haysato. Qof walbo waxa uu leeyahay cod ka dhex guuxayo kaasoo ah hiigsi, nolol wanaagsan iyo wixii la mid ah. Marka ha u ogolaanin afkaaraha dadka kugu hareeraysan inay saameyn kugu yeeshaan. Waa sax, dadka wixii talooyin iyo fikrado ah way kula wadaagi karaan. Laakiin tusaale, haddii maanta fikrad kugu dhalato oo jeceshahay inaad ka miro dhaliso, haddii xitaa adduunka dhan u maleeyaan inaysan suurtagal ahayn, ha u joojin. Isku day inaad taabageliso arrinkaas. Maxaa yeelay marka ugu horeyso wax walba waxaa loo maleeyaa inaysan macquul ahayn ilaa qof uu suubiyo. Qodobka labaad ayaa ah inaad u maleyso fursad kasta in la qaatay. Markii aad la sheekaysato dhalinyarada badankooda waxaad moodaa inay isku afkaar yihiin. Waa nasiib darro haysata dhalinta oo iska dhaadhicinayaan inaysan jirin fursad horumar lagu suubin karo. Henry Ford waa ganacsade Amerikaan ah. Waxa uu dhahay khatarta ugu daran uu qof bini'aadam dareemi karo ayaa ah inuu u maleeyo in fursad kasta la qaatay, in fursadba aysan jirin. Ma jiro qof bini'aadam ah oo ka hor istaagi karo fursad haddii adiga aadan u ogolaanin. Ma u maleynaysaa shirkadaha dunida ugu caansan maanta sida Amazon, Hawaii ay horumarkan ku tilaabsan lahaayeen haddii aysan ka gudbin xayndaabka maangaabnimo. Shakhsiyaadka hindisay shirkadahan waxay la yimaadeen hal abuur wayna ka dhabeeyeen. Ganacsigu waa wareegto, waa sidii mashiinta cagta wareeganaysa oo kale. U fiirsa maanta, kambaniyaasha dunida ugu caansan ma sii haysan doonaan 20 sano oo hadda kadib suuqyada caalamka. Waxaa imaan doona kambaniyaal kale sababtoo ah waxaa jiro dhalinyaro ku howlan in ay soo saaraan wax cusub oo indhaha caalamka soo jiidan kara. Qodobka saddexaad, inaad u maleyso weligaa inaad dhalinyaro ahaanayso. Tani waa caqabad dhalinyarta badankooda haysato. Waxay u maleeyaan mar kasto inay dhalinyarnimo sii ahaanayaan. Dhalinyarnimadu waa wax waqti kooban ku eg. Yacni waad xisaabin kartaa waqtiga dhalinyarnimo. Da'yarta maanta waxaa ka maqan qorshe cad oo ku dhisan aragti fog. Ayadoo tii Rabbi jirto, haddana waa inaad leedahay qorshayaal cad. 5 sano kadib maxaa ii hirgalay? Waqtiga dhow maxaan hiigsanayaa? Waa inaad leedahay bartilmaameed. Waqtigu waa muhiim. Waxaa jira waxyaabo badan aad qabsan karto inta aad yar tahay, laakiin hadhow markaad weynaato dhib kugu noqon karto. Qodobka afaraad, qof walbood aragto in aad waqtigaada kulmiso. Maalin walbo shaanigeeday wadataa. Waxaad la kulmaysaa dad kala duwan, dabeecad iyo dhaqan ahaanba kala gedisan. Dadkaas asxaabtaaday ka mid noqonayaan. Waxaa jiray waqtiyada ka mid ah aan akhriyay buug kaasoo aan ka dhaxalay xigmad oranaysa asxaabta ama dadka aad waqtiga la qaadato waxay go'aamin doonaan mustaqbalkaada siduu u ekaan doono. Maalintaas kadib waxaan go'aansaday inaan joojiyo sidii hore aan asxaabta u baran jiray. Waxaan bilaabay inaan barto asxaab kuwaasoo leh hami, hiigsi, yacni kula fahmaya nolosha. Laakiin marmarka qaar waxaa dhacayso inaad la kulanto dad kuwaas oo ka quustay nolosha, wax walbana ku eedeynaya dowladda. Kuwaas waa inaad ka fogaataa.
waayo noloshooda ayaa ku dhisan in shakhsiyaad ama dowlad la eedeeyo. xaqiiqda jirta ayaa ah haddii aadan ka taxadarin saaxiibka ama asxaabta aad yeelanayso, wax walba ay suubinayaan wanaag ama xumaan way ku saameynaysaa. mar walbo asxaab ka dhigo kuwa aqli u saaxiibka ah oo wax wanaagsan kugu soo kordhin karo. qodobka 5aad oo ugu dambeeyo ayaa ah inaad ku xirnaato waxyaabo aan micno lahayn. marmarka qaar waxyaabo aan micno lahayn markaad ku mashquusho waxaa ka dhalan karto cawaaqib xumo ah in shaqadaada aad ku weyso. tusaale, gabar ayaa company laga shaqaaleysiiyey, 3 bari kadib shaqadii waa laga ceeriyey. sidee macquul ku noqotay? sababta ayaa ah gabadha social media ay aad u isticmaali jirtay. lagama yaabo in telefoonkeeda hal saac xitaa gacanteeda ay ka dhigto. waxay ku mashquuleysaa warbixinada aan daba dhamaadka lahayn oo u soo dhacayo. ma dhahayo social mediaha waa wax xun, laakiin waa wax aad u yar. marka kaliya oo la rabo in social mediaha waqtigaada aad geliso waa inay noqotaa markaa dhaqaale ka suubinaysid. tusaale, bishii lacag intee leeg ayaa iga soo gelayso iyo wixii la halmaalo. kumanaan qof ayaa social mediaha ka shaqaysato, halka kuwa badanna ay waqtigooda ku lumiyaan sida commenti iyo waxyaaba aan micno badan suubinaynin. dunidan aynu ku noolnahay maalayacnigu aad buu u batay. isku day waqtigaada iyo maskaxdaada inaad geliso wax kuu tarayo. way wanaagsan tahay dadka kale inaad tusaale ka qaadatid, laakiin qalbigaada waxa uu ku farayo waa inaad raacdaa. ha ku luminin ilbiriqsi ka mid ah noloshaada inaad dhahdo fursadihii way dhammaadeen oo kale. maxaa yeelay haddaad saas suubisid, jaanis uma heli doontid inaad aragto fursadaha kugu hareereysan. maalayacniga iska ilaali, sababtoo ah wax walbo riyooyinkaada aan kuu dhaweyneynin waa wax aad u yar. haddii aad muuqaalkan ka heshay, fadlan subscribe saar kanaalkeena. mahadsanideen.